waxaanu shirkeena amniga ayaynu maantay halkan ugu qabsanay alxamdulillah. shirku wuxuu ku saabsanaa arrimaha amniga. xalay ciidanka amnigu waxay galeen howlgal ay kula dagaalamayeen argagixisadii oo wada kala furatay oo markii qaraxii iyo baskooladii iyo waxa ay dadka ku dhigi jireen iyo canshuurka qaadkii iyo telefoonka iyo mushkiladoodii iyo mobile furashadii iyo la soo xaliyay hadda khamradii u guuray oo iyagu khamrada waddanka keena oo cabtayda maalgeliya oo ka shaqeeya fawdada una fahmay halkaas meel ayaan kusii noolaan karaa inay tahay. xalay ciidanku howlgal wuxuu ka galay xerada kabka magaalada Gaalkacyo. halkaas waxaa ka dhacay khasaaro. nimankiina way baxsadeen cabtayda ahaa. waana lagu raad joogay waa la soo qabanayaa. hal askari ayaa ku dhintay oo booliisa allah u naxariisto. howlgal qiimo badan buu ku dhintay isagoo oo munkar suurinaya ayuu askarigaas ku dhintay. ilaahay jannaan uga rajaynaynaa qoyskiisii iyo ciidanka booliiska iyo dowladda Puntlandna waxaan ilaahay uga rajaynaa sabir iyo iimaan. askarigaas magaciisa waxaa la oran jiray Muxyidiin Cabdi Jaamac sheekeeye naxariista allah siiyo. in dhalinyaro ah oo sarkaal dhalinyaro ah askari ah oo shaqeeya oo booliis oo ahaa howlgal wanaagsan ku dhintay. waana la daba socdaa ciidankii ilaa iyo xuduudda Itoobiya sii garan ciidanka ka daba baxay nimanka qayb ka mid ah halkaas oo carareen. waana xoojinaynaa howlgalkaas oo hadda ka hor ciidan baan u sameynay waana wadnaayo waa ka nadiifinayna argagixisada qaybtaa kale nagu sii waari mayaan ilaahay idankiisa. annaga iyo argagixis hadba inay shaar gashanayso hadba koor soo bedelanayso waa ognahay. marka dadweynahana waxaan u sheegaynaa dagaalka argagixisada qaybtii koobaad baa dhamaatay. qaybtaa labaad oo ay fuuleen khamrada soo fuuleen oo ay alkoolistayaasha iyo khamrka ganacsiga ay kusoo biireen inaad qaybtiina ka qaadataan baa la rabaa. maalintii kaasi dhammaadana mid kale ay soo fuulaan waddanka haddaan laga nadiifin waayi mayaan. ama qabiil ha soo fuuleen ama khamraha soo fuuleen ama meel kale ha yimaadeen argagixisadu oo waxaasan alla aqoono maafiyada ahoo maafiyadu maalinba meel bay dadka ka soo gashaa. qodobka labaad wuxuu ahaa oo shirkeena maanta lagu soo qaatay arrinta dhulka oo dhibaato badan ka timid. waxaan sameynay bishii saddexaad ee sanadka bilowgiisii ahayd guddiga xalinta khilaafaadka oo akhyaar ah. guddigaas waxaan u sheegaynaa dadweynaha waa guddi dawli ah oo xukunkooda uu xukun dawladeed yahay oo dadka dhulka inay ku kala saaraan aan u xulay oo isugu jira looyaro culumaudiin iyo injineero iyo odayaal dhaqan ah isugu jira oo dadkii ashraaftiisii ahayd qayb ka mid ah oo aan u xulay dhulka in ummadda kala saaraan. shaqo fiican bay qabteen. dhulka in badan baa laga nastay. cilladaa yimid cilladihii yimid qayb waa ka ballannay. waxaa la rabaa in horta lala shaqeeyo dadweynuhu xukunkooda ay ogaadaan inuu yahay xukun dawladeed oo aan soo noqosho lahayn. waxyaalihii iyaga ay tabahayeen qaybo ka midana iyaga iyo waxaanu isla xiriirinay maxkamadda gobolka iyo qaybta booliiska oo uu hogaamiyo muumin baanu isku xiray. waxyaalihii noocaas ahaa iyo dadkii ay xukumeen xukunka qaadan waayey iyo kuwa maaragtay fal khaldan galay iyo waxaasoo dhan waxaan u daynay iyaga iyo booliiska aan isu dayay. qayb waxaa jirta dhibaatada dhulka jirta oo dhan iyo xaalufinta deegaanka oo dhan kowka ah waa niman kale cagafley maanta waxaan ka qaadanay go-aan. iyagii baa mushkilad noqday. number 1 horta cagafta oo dhan waxaa la rabaa inay isdiiwaan geliyaan oo dowladda hoose wax cagaf waddanka yaala iska diiwaan geliyaan. xafiiska dowladda hoose beris wax laga bilaabo waxay cagaf wataa inay tagaan oo iska diiwaan geliyaan. 2 cagaflihii lagu qabto isaga oo aan warqad qofku dhulka u jeexayo uusan warqadii dhuljeexa dowladda hoose wadan waxaa la isugu darayaa ganaax. cagafta la ganaaxo oo lacageed isagoo la xiro iyo 6 bilood shaqada laga fariisiyo cagaftaas oo ayaan dalka mar damba ka shaqaynaynin. cagaftii arrintaa lagu qabto cagaftii waxay noqotay mushkilad. waxay noqotay waxa ugu daran oo dhulkii ka shaqaysa oo aan la xallin karaynin oo maalin walba meeshii la istaagaba dhulka iyagu qodaya oo meeshii ay soo xalliyeen oo ay soo kala saareen dadkii ilayaashii wixii lagu kala saaray xataa burburiya. marka cagaflayaal oo dhagaysta maanta laga bilaabo cagaf aan register dowladda hoose ka ahayn horta cagaf maaha. kow qof aan warqadii dhuljeexa dowladda hoose ka wadan uma dhaqaaqi kartaan.
cagaftii u dhaqaaqda waxaa la isugu darayaa ninka cagafta wato dareebalka ka ah waa la xirayaa cagaftana waa la xaraynayaa qaybta booliiska lagu xaraynaya 6 biloodna ma shaqaynayso ganax lacageedna waa lagu dhufanaya intaas ninkii warqadda ayaroo booliiska iyo registrationka kaa xiga intaa ninkii qaadan waaya haddee isagaa yaqaan meeshu ka shaqaynayo gobolka mudug kama shaqaynayo wixii waxaa ka shaqeeya waa fidmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo qiimaha badan oo gobolkan muddadii waqtiga adag ahayd sida adag uga soo shaqeeyey qiimahana badan aad baan idinku mahadcelinaynaa hadda waxaa laydinka rabaa wacyigelinta iyo barnaamijyada iyo dadka dhexgalka